musalsalka arday ma ahaan doono mid sii socdoona hadduu sidaani ku sii socdo. Soo dhawaada daawadayaal, marka hore waxaan kaa codsanaynaa inaad YouTube-keena subscribe inoo dhahdo videogana share gareyso. Maxay tahay sababta loo joojin doono musalsalka arday hadduu sidaan uu ku sii socdo? Musalsalka arday oo la filayay inuu ku bilaawdo qaab caadi ah ayaa xalqadiisa koowaad dhawaanahan soo baxday ayaa waxay ku bilaabatay qaab marxaladda dalka hadda uu ku sugan yahay. Musalsalkanina meelo badan wuxuu ka taaban doonaa dowladda sidaan hore ugu soo aragnay xayeysiimihiisa. Sababtaasi ayay keeni karta in la joojiyo musalsalkan gebi ahaantiisaba. Sababaha lagu joojin doonana waxaa ka mid ah musalsalka afkiisa hore wuxuu ku bilowday in qarax uu dhacayo meeshana ay dad badan ku geeriyoonayaan. Sidoo kale musalsalka xayeysiimihiisa waxaan kusoo aragnay ardayda ka mid ah in la dili doono, in ardayda badankoodana ay isticmaali doonaan daroogo. Taasina waxay sumcad daro ku tahay dowladda. Sida hadda aan idin akhrin doono warqad soo socota, bahweynta waxbarashada dalka waxa ay u arkaan in baahinta filimka arday uu yahay mid ka hor imaanaya diinta, akhlaaqda iyo anshaxa guud ee ummadda Soomaaliyeed, khatarna ku yahay nabadgelyada guud iyo badqabka ardayga Soomaaliyeed, iyadoo ay ka dhex muuqdaan matalaad anshax xumo ah iyo ficilo foolxumeyn ku ah waxbarashada, taasoo ah fal dambiyeed sida uu xeerinaya xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, gaar ahaan qodobka 403 oo lala akhriyo qodobka 404 ee isla xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 46 ee xeerka nabadgelyada guud. Sidaa darteed, bahweynta waxbarashada waxa ay wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dalka ka codsanayaan in ay qaadato kaalinta kaga aadan fafreebka filimada iyo riwaayadaha, maadaama ay xubin ka tahay guddiga fafreebka filimada iyo riwaayadaha sida uu xeerinayo xeerka 21 ee soo baxay 1963 gaar ahaan qodobkiisii 45. Haddaba waxaan rajeyneynaa wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare in ay joojiyaan baahinta filimka arday oo la shaaciyay in la sii dayn doono 27 bisha Afraad 2023 oo ku beegan tahay maalinta beri ah. Waa maalinta la soo deeyay filimka arday. Marka daawada ma kula tahay in filimkani uu sii socon doono uu dhameysan doono? Daawada fikirkaaga waa inoo muhiim, commentiga inoogu reeb, videogana like gareey, channelkan subscribe soo dheh. Waana mahadsantahay, thank you. Inta video caankan kula ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sida nabadgelyo.